golaha shacabka tixgelin gaar ah siiyaan arrimaha soo socoto marka go'aan laga gaarayo nooc doorasho iyo nooc diiwaangelin ee la ansixinayo maadaama guddigu uu yahay guddiga ku shaqayn doono wax allaala wixii la soo saaro guddiga doorashada waa guddi madiidin u ah shuruucda aad soo saartiin inay ku shaqeeyaan shaqadeena waa intaas laakiin markaan ku shaqaynayno waa inaan heli karno wax aan ku shaqayn karno waa inaanaan helin wax xujo ah iyo sambuus afargeys ah xulashada nooca doorashada in nooca doorashada la waafajiyo mabaadi'da dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka wixii kaas koow in hirgelintiisu ilaaliyo xuquuqda muwaadinka ka qayb galaya doorashada ha noqdo tartame ama ha noqdo codbixiye in xuquuqdooda la ilaaliyo sharcigaas waa inuu xuquuqdooda ilaalin karo qodobka saddexaad in aan guddiga madaxa bannaan la saarin mas'uuliyad fulinteedu adag tahay sida soo saaridda habraacyada astaynta deegaanada doorashada iyo dhowrista qoondada dumarka afar in nooca doorashada uuna u horseedin khilaaf iyo dagaal ilaaliyana midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed shan in uu ilaaliyo xuquuqda dhalinyarada dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka aan hadda baarlamaanka matalaad ku lahayn qodobka kale waxa weeye in guddiga madaxa bannaan doorashada la siiyo fursad uu ku xulan karo nooca diiwaangelinta codbixiyaha haddii uu arko inuu la jaan qaadi karo duruufaha ku xeeran ama saameynta ku yeelan kara howlaha doorashada tusaale haddaan idinka siiyo sharciga waxaa ku dhigan waxay noqonaysaa diiwaangelinta biometric waa 100 nooc noogu habboon inuu guddiga xulan karo marka in loo fududeeyo sharcigii hore waa ku jirta waa laga reebo qodobkaas ma fahamsanin sida ay noqon karto markaasayto mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh ugu dambeyntii maanta waxaa idin hor yaalla hindi sharciyaad doorasho oo ka turjumaya masiirka ummadda Soomaaliyeed waxayna ummadda Soomaaliyeed idinka sugaysaa maalmarinta sharci la jaan qaadi kara duruufaha dalka ka jira howlihii uu guddigu soo qabtay duruufaha dhaqan dhaqaale laguna dhisi karo dawlad dimuqraadi ah oo ku timaada doorasho qof iyo cod ah waxaan idin rajaynayaa guul shacabka golaha shacabka guul iyo baraaro aan is-aamino aan is-dooranno haddana aan is-aamino waa mahadsantihiin